wax cusub maahan in laba fanaan oo isku xilli ku wada jira fankooda ay isku dhacaan dagaalna uu ku dhex maro baraha bulshada. maantana waa Qamar Suugaan iyo Cabdi Dhaanto oo ka mid ah fanaaniinta dhulka Soomaalida sida weyn looga garanayo. inta aad muuqaalkan daawanayso waxaad ogaan doontaa waxyaabaha sababay dagaalka labada fanaan, qoraalada la isku adeegsado oo ah kuwa caadiga ka baxsan, iyo waxa kale ee xiga dagaalka afka ah ee hadda u dhaxeeya labada fanaan. inta aanan guda gelin, like saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada si aan u helno saaxiibo badan oo adiga oo kale ah. aad iyo aad ugu mahadsan tahay la socodkaaga. mar walbo aad ku jirto shaqo waxaad la kulmaysaa tartan dadka shaqadaasi ku lugta leh. tusaale fanaaniin ahaan marka loo eegana qaarkood waa kuwa tartan badan uu ka dhaxeeyo. marka la eego saaxadda fankana kumaba sii jirto, lamana waayo dagaal dhanka baraha bulshada ah oo u dhaxeeya qaarkood fanaaniinta isku xilliga ah. si weyn ay iskula falgalaan, dagaalkoodana waxa uu gaaraa heerka ugu sarreeya iyagoo isku muujiya nacayb daran haba u badnaadaan dumarka fanaaniinta ah ee Soomaalida. waana waxa iska yar in wiilasha fanka ku jira ay iyaguna iscaayaan islamarkaana isku isticmaalaan baraha bulshada, inkastoo caadadaasi aysan keliya gaar u ahayn dumarka. aniga ahaan ummaddan lihiinaan wax ka sheego labada fanaan ee kala Cabdi Dhaanto iyo Qamar Suugaan, balse waxa ay dhaafeen xadka dagaal iyagoo si xadaaf wax isaga sheegaya baraha bulshada iyo wajiga hore ee kumanaanka qof ee ku xiran baraha ay dadka kula xiriiraan. waxaana qaar ka mid ah ereyada is dhaafsadeen ay noqdeen kuwa lagu qoslo. walwal iyo ubax wardheer ka baxay. Qamar Suugaan iyo Cabdi Dhaanto dagaalkooda waxaa aad loogu hadal hayaa baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka, qaas ahaan Facebook. inkastoo dadka qaar ay shaki geliyeen sax ahaanshiyaha qoraaladan, haddana baraha lagu soo gudbiyay ayaa ah beejadkooda Facebooka oo leh taageerayaal badan. marka loo eego saaxadda fanka iyo darajooyinka ay labadan fanaan kaga jiraan, ma ahan wax isku dhow. marka la eego heesaha la soo saaro waqtiyadii la soo dhaafay iyo saameynta ay ku leeyihiin dadka dhexdooda, waxaa aad u sarreeya Qamar Suugaan, inkastoo Cabdi Dhaanto uusan ahayn fanaan liita. waddankaaga dhigi lahaa haddanka rabbiya macaan, waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku quban. Qamar Suugaan oo ah mid ka mid ah fanaaniinta ugu wanaagsan Soomaalida waqtigan la joogo, haddiiba uusan ahayn midka koobaad ee heesihiisa ay ka gadmaan dhalinyarada, ayaa mar qora waxaa jawgiisa qasay oo farxaddiisa burburiyey fanaanka caanka ah Cabdi Dhaanto oo ah mid ka mid ah fanaaniinta baryahan lumay oo aan sida weyn loo hadalhaynin. dagaalkooda waxa uu gaaray heerkii ugu darnaa, daandaasigana waxaa bilaabay fanaanka Cabdi Dhaanto, kaasi oo qoraalkan aad arkaysaan soo dhigay bartiisa Facebook si uu uga dhigo dhiggiisa Qamar Suugaan oo ay dhalinyaradu aad u jecel yihiin marka la eego fankiisa mid liita, isagoo ku tilmaamay shaqsi isagu khamriga caba. waxaana qoraalkan uu ka dhigay Qamar Suugaan mid uu aad uga xanaaqay, weliba si xad dhaaf ah, waxaana uu ka bixiyey jawaab cad oo dadka qaar ay ku qosleen. xitaa isaga oo qoraalkaasi soo qoray ayaa xanaaqii qosolba soo raaciyey marka loo eego emojiga uu isticmaalay. aniga ahaan uma baahnayna aqriyo fariimahan sabab la xiriirta dooqayga inaysan ahayn aqrinta erayadan aan wanaagsanayn, balse adiguba waad aqrisan kartaa, weliba si hoose. labada qoraan marka la isdhaafsaday, Qamar Suugaan kuma uusan ekaanin kaliya intaasi, waxaana uu isa soo daba dhigay bostiyaal badan uu soo dhigay bartiisa beejka si uu u sii bahdilo Cabdi Dhaanto, xilli sidoo kale Cabdi Dhaanto uu falcelino kala duwan isaguna bixinayo. lama oga halka labada fanaan ee sheekadu la tegi karto iyo sida dabka shidan loo damin doono. adiga hadda muuqaal ka daawaday sidee ayay kula tahay? magaceegu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho.